हमने कतर के साथ भी इस मामले को उठाया है। بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. culayska iyo brasharka ciriiriga iyo handadaada marka laga badiyo ibn aadanka oo arko saaxiibadii inay ku yaraadeen oo walaal marka u gargaar ama saaxiib u heeliya oo meesha dabcan unan joogin wuxuu ku dhawaada inuu isdiibo waa xaaladda hadda qadar ay ku sugan tahay. tusaale ahaan مثلا India waagii Sheikh Dr. Zakir Naik qadar uu yimid ilaa imaantadan waxa ay ku haysaa qadar pressure bal waxaad arkaysaan waxay afcad ku leeyihiin hadalka meel fiican oo inoo maraya in ay lagu soo wareejiyaan sheekha. हमने कतर के साथ भी इस मामले को उठाया है। हम उनसे भारत में न्याय का सामना करने के लिए सभी आवश्यक स्टेप्स कदम उठाने की जारी रखेंगे। waxa cajiib ah brasharkan inta leeg ilaan ma ogtahay caalamkii kale oo dhan ayaa wuxuu u weeraray qadar si aan caadi ahayn oo xataa dabcan walaalahooda carabta ahaa ay garabkooda ka bixeen gaar ahaan Sacuudiga iyo Imaaraadka. siba Sacuudiga waxyaalaha cadcad ee uu sameeyay waxay ahayd qoraalada saad arkaysaan dabcan inuu xataa ciyaarihii laga fiirsan lahaa Sacuudiga si live ah خاصة جنال كي وينا أما ديش كي أما ساتلايت كي وينا ساتلايت ما طبعا لكن أديق برنامج سيدا نتفليكس أو كرويان أما وأديق جنال إسكده وحي سمينوها محي إني قويين يجرين وجدنا محي تهي سي شعبك كوحيران أما سبسكريبشن كالعاقها بحيب بالله سي لو قدر قدر مركا سعودية أي طبعا مركا أي نخضان دت مركا معامل أهان وأخاته المهم إن عولبه أيا لغلط دقالمي حتى ولا الله هذه إلا دقالمين إنديا وصل درسنت مركا إنديا محكو هيستم وداد كان أو هذا كان المانت وياهي وحكو ما هيست بدنا أنت خذ بيشي جانيس إنديا وجوه هي أرنت أرجع حساب إلا هذا هي مركا لقته أفعت أيا وحي كله ورباهين هذا وحلقوه هستانين كان هي هذا الذي نعيب كأها ودبعا إنديا كوفا فينجري تاسو سببتي وسيدا أجو تاسو سببتي إن هندوس بدن أي دين تو ذكرتجان أما يكشكيان عجيب معنا وحلقوه هستاسكر هدام كوتوسو محادو إسلامي سهندوس كي بقولالك كون أما مليان ككودوا تقريبا محل وحي شيغayaan hal maalin kaliya ayaa waxa ku islaamtay televisionkiisa la dhihi jiray bis inuu hadda jiray in kala ma garanayo dad ku dhow 2,000 oo qof maxay halkii mar ayaa milyan ku dhawaad si live ah ama si caadi ah jismiyan ah dad sida hadda ii daawanaysan u daawanay ulama jeedo waxaan ula jeedaa dad xaadir ah meeshii la jooga ayaa waxa dhicayso waa maxay in milyan ku dhawaad ama milyan marka qaarkiisa inay meeshii yimaadaan meel noocaas oo kala ah intuu iibsaday dhul nooca sharaxay qurxiyay ayaa kun ay Ilaahay subhanahu wa ta'ala diinta India marka hortii normal ay ahayd sababtoo ah sida dastuurka India ku qoran in qof walba awood u leeyahay inuu diintiisa ku faafiyo India xurno u yahay maxaa yeelay Hindus ka dhihin muslimiinta dhihin Buddhistaha Sikh intaasoo diino ama intaan hadda xusuusan ee kala duwan ayaa ku nool meeshii marka dastuur waxay qorteen qolo walba diinteeda xuray u tahay inay faafiso laakiin markay arkeen ninkan Dr. Zakir Naik inuu wadankii ka wado olala zaid ah oo aanan la qiyaasi karin ay waxay dhahay ninkan waa inuu horta kow money laundering uu sameeyo يعني العقد مدو iyo adiga lacag argixisi waxa wixii la midka ah u kala gudbiya koow wana taageera argixisada taageera saddex wuxuu faafiyaa naceebku faafiyaa waa inta wax kala ma marka waxay leeyihiin sida hadda secretary-gooda uu ku hadlaayo Malaysia naftirkeeda oo siisay dhalasho xataa waxaan kula jirnaa wada hadal marka haday qadar dabcan noo soo dhiibto sida hadda ay ku socoto waa sida ay sheegayaan macnaha ayaga ilaahay idinkiisa ma noqon doonte ayaa marka Malaysia waxaan kula jirnaa wada hadal kaasoo keenaya ama sameynaya in hadii la noo soo dhiibo inayna Malaysia ka daba hadlin macnaha maadaama muwaadin dabcan شيء أهان يعني ولا شيء ما أهان هذا باسبور كذا وهيستو أي citizenship سيسي يعني عجيب marka brasharkii qadar sida loogu waday waxay maraysaa hadalkaasi hadalkiisan waxay leedahay qadar aniga horta uma wiciinba Dr. Zakir wadankay anigu kuma casuumin waa hadalkaasi sida ku qoran meesha hadalkiisan anigu kuma casuumin wadankay asa iska yimid macnaha waxaan u wacday ururo iyo dad marka jamciyaad wadanka joogo oo khayri ah u wacday barnaamijkii ugu wacday inuu wada anaga televisionkeena mesela marka ay dawladda leedahayna booska ma aanan siinin ciyaarihii adduunka ee marka meelihii anaga official kan u lahayn waxba kama aanan siinin meel private wax ku wata wabillahi tawfiiq marka uma wacan anaga almuhim iska baryeelaysa qadar imaasha uu ku imaaday wadankeena anaga shaqo ku mariyay amal Indiana maxay leedahay hadalka meel fiican oo inoo maraya hadda anaha culayska sidaan u saarnay si fiican oo ku socda marka Ilaahay tabaaraka wa taala horta waxaan ka baryayaa aamiin dhahdaan in Ilaahay tabaaraka wa taala uu adkeeyo mowqifkeeda qadar inaan sheekha dhiibin maxaa yeelay sidaan idin sheegay dhinac walba laga galaya dhinac walba bal u fiirso waxa cajiib ah Malaysia inta ku noolaa oo siisay sheekha dhalasho pressure unay saaran India laakiin kuma aynan dhiiran waxa hadda ay ku dhiiranayaan oo ila soo taagan yihiin oo ah waa in noo soo gudbiya tusaale
Interpol ay ka qoreen oo ah in askarta adduunka yani in ay soo qabato iyo wixii la midka laakiin Interpol waxay leedahay anaga cadeen inta aad noo soo gudbiseen wax nagu filan ma ahan oo aan markaasi ku soo xiri karno ku qaban karno maxaa yeelay Malaysia saxiix la leedahay Interpol sida aan filayo oo markaasi xataa way ka qaban kartay hadii ay haysato cadeen yani marka cadeen nagu filan website-ka dabcan gala Interpol ka fiiriya macna qoraalkaasi cadeen macnaha nagu filan ma haysano aan ku soo qabanno ila Interpol marka la fiiriyo ayadoo ay yihiin wadamo isu tagay iyo macnaha heshiis ay gaareen ayadoo ay yihiin haddana sharci ay leeyihiin ama laakiin wadan marka sida hadda wadamada Carabaha oo kale Qatar oo kale Imaaraadka oo kale Sacuudiga oo kale yani waa wadan oo ka taliyo ama ay ka taliyaan ashqaas ama qoys oo kale marka pressure hadii lagu badiyo maxaa dhici karaya waxa dhici karaya Allahu a'lam kulli ilaahay laakiin kulli ma qadaro ilaahay subhanahu wa ta'ala kuma ceebeeyo geesinimo muujiyeen way adkaysteen dhinac walba isaga tiiriyeen ilaahay tabaaraka wa ta'ala waxaan aga baryaynaa inuu hadan si adkeeyo waxaan meeshan ka xasuusanayaa rasuulullaahi calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa markii godkii weynaa ay qoteen ay ku soo wareejiyeen Madiino ayagoo xaaladda ay aad ugu xun tahay gaaladii ay isu soo bahaysteen buu Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu leeyahay wuxuu xusuusinayaa oo dhahaya tabaaraka wa ta'ala id jaa'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaqatil absar wa izzaqatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa ظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الله تبارك وتعالى وحو آيات كاسي كليهي مركي كر إيه هوس بلا إذا كغيمد إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار إندي هنا أي إيشان قلوبتي هنا أي دون تسوغارت يعني عبسي إيه والول إيه نحرين درت هذا ماشي هسدغارتين أرققح إذن كدعي ومركان إلهي أتكمل إيساتين ملوين وأهم معناه إلهي محا كدعي محونو قرقاري إنو حيلا متكا الله وحو راعينا آيات كوحيكتا هنالك بتولي المؤمنون مركا وزلزلوا زلزالا شديد يعني سيد الله امتحان أيو إلهي نوغا ورمايا مركا الشيخ حالدا أو كسوغان يحي إلهي تبارك وتعالى نغا غرانايا لكن إنديا حتى تسالان كسوقات إن أرنتان أي تهي بروباغاندو مادام ويبسايدود إيو تلفزيونada kaliya ay ka hadlayaan inta badan ka soo qad propaganda inay tahay sheekh waa hindi wuxuu la socdaa waxyaalaha dabcan ay ku hadlayaan idaacadahooda iyo telefishinadooda iyo wala socdaa macna imisoo dareemi karaya adigoo lagu dhahay ka waran dawlad sida India oo kale u awood badan yani dawladaha ugu waaweyn ay ka mid tahay India hadii nuclear tahay hadii dhaqaale tahay shacabku waa shacab masaakiin dabcan oo iska fuqara laakiin India quwadaha adduunka ka mid tahay macnaha waana G20 ku jirta yani 20 wadan ee ugu warshadaha iyo wax soo saarka badan u fiirso marka dawlad noocaas oo kale ah marka lagugu ibtilay ka waran adiga oo ay ku raadsanayso oo aad wanted u tahay oo aadna joogto dawlad hee saa daciif oo u yar oo hadii laga yaabo India iyo Mareykan iyo badaay inta heshiyaan lagu dhiibi karaayo maxay Mareykan haduu soo gal waa garan kartaan sida arintu halaabi karto ilaan waxay ku shabadaynayaan waa argagixiso sheekha India yani shabada ay wadato waa argagixiso Interpol waxay leedahay macnaha may anaga ma dhihi karno 100% cadeemaha naguma filna laakiin ka war haday ka dhaadhiciyaan qolooyinkan kale oo qolooyinkan ay aqbalaan maxaa dhici karaya qadar imise adkaysan kartaa tusaale ahaan marka sheekha ilaahay tabaaraka wa taala kaligiisa og xaaladda oo maraayo ilaahay u gargaar ilaahu qalbigiisa u daji ilaahay tabaaraka wa taala dawladda qadarna adkay ilaahu propagandadan ay ku wadaan oo habeen iyo maalin aan arkayno oo naga nixinaysa xaqiiqatan oo qulubteena taabanaysa ilaahay subhanahu wa taala waxaan ka baryaynaa ilaahayow in dhinac aad ka mariso ilaahu kana jeedi cadowgaasi horarka ilaahu ka jeedi oo dhinac kale uga jeedi cadowga horarka habeen iyo maalin ku mashquulsan wadaadkaasi ilaahay tabaaraka wa taala diintiisa u gargaaray run ahaantii caalamkan maanta aan ku noolnahay waxa qof walba u marxaati ka yahay og yahay bal aan dhihi karaa qof walba muslim iyo gaal sheekha Dr. Zakir juhdiga uu ku bixiyay diinta islaamka iyo soo islaamida dadka boqolaalka kun ah ee ilaahay subhanahu wa ta'ala sababta aga dhigay ka hor dabcan sheekhiisa ama macallinkiisa Ahmed Diidad rahimahullah ayaa taagnaa kadib waa maxay dhaxalkii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku soo wareejiyay doctorkan maxaa dhacay hadda wixii aad aragteen ilaa ay qoladan la daba dhigay qoladan hadda ogow intay u galeen dacwadii aw sheekh intay ka baxday zero malaha macna telefishinkii iyo yani ururkiisa xataa oo marka research ka sameyn jiray ee dacwada aad ku u fidin jiray waa laga mamnuucay India ma shaqeynayo maxkamadda waxay go'aamisay ururkaas inuu yahay urur dabcan argixisay wixii la midka marka ma shaqeeyo haba yaraatee marka Malaysia dacwadiisa iyo nashaadkiisa way xadiday maadaama India naftirkeeda ay pressure saartay kaliya pressure dabcan soo dhib ma inaan saarin laga yaabo inay saartay laakiin ugu yaraan yani Malaysia waxay ku dadaashay inuu afka xirto kulamadii waaweynaa ee wixii la midka oonan sameyn ay ku dadaashay Malaysia oona yeelay dabcan maadaama nabadiisa ay ku jirto iyo amaankiisa uu ku jiro qof walba oo meesha joogto ilaahay bari oo ilaahay waxaad u barisaa madluumiinta inta la dulmaayo inta dhibaatada maanta lagu hayo ee cidda ka awood badan ay ku hayso wadankeena dabcan uu kamid yahay dad masaakiin ah ku dulman ku dhibaataysan annaga dabcan aan kamid nahay qaxooti aan ka nahay maanta adduunka daafiis aan ku kala noolnahay wadankiyo dhibaatada jirta qarax iska socda ilaahay subhanahu wa ta'ala daalimiinta wax dhibaatayna inuu ilaahay naga qabto inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala anana wadankeena amaan noogu soo sugo sheekhan inuu ilaahay tabaaraka wa ta'ala ka qabto wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh